Assalaamu calaykum. Horumarka laga gaaray dawada casriga ah ayaa si weyn u kordhisay rajada nolosha qarniga la soo dhaafay. Celcelis ahaan, rajada nolosha qofka Mareykanka ah waxay ahayd 47 sano qarnigii 19aad, sida laga soo xigtay waaxda caafimaadka ee Mareykanka 2018 daabacaad ka timid xarunta qaranka ee tirakoobka caafimaadka. Maanta xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee Mareykanka CDC ayaa sheegtay in celcelis ahaan nolosha qofka Mareykanka ah ay noqon karto 78 sano. Si rajada nolosha ay kor ugu kacdo iyo da'da bulshooyinka, waxaa lama huraan ah in la helo daryeel caafimaad oo dheeraad ah. Dhab ahaantii, waaxaha caafimaadka quseeya ee dalka waxaa loo baahan yahay inay dhaqaale iyo adeegyo dheeraad ah u qoondeeyaan sanadaha soo socda bahda caafimaadka si loo gaaro meel sare oo lagu kordhin karo da'da nolosha ee qofka. Si guud, hawshan baaxadda leh waxaa hoggaanka u haya takhaatiir kala xirfado duwan, mid walbaahina qayb ku takhasusay. Mowduuceena waxa uu daaran yahay inaan kala fahanno takhaatiirta iyo xirfadaha u kala gedisan. Inta badan bulshadeenu ma yaqaanaan takhtarka ku habboon marka ay xanuunsadaan ama ay u geyn karaan ehladooda. Waxaad arkaysaa bukaan takhtarka cunaha iyo dhigaha ENT u baahan oo dhakhtar dheefshiidka qaabilsan fayl ugu jira, ama mid takhtar keliyo ama kaadi mareyn u baahan laakiin takhtarka saableyda qaabilsan sugitaan ugu jira. Si markaa loo kala garto shaqooyinka takhaatiirta, aan gudagalno mowduuceena. Marka ay qofka la soo dirsaan xaalado caafimaad xumo, waxa uu la kulmaa takhtar xaaladiisa la tacaala. Waxaa jira noocyo badan oo takhaatiir ah. Nooca takhtarka iyo xanuunka bukaanka ayaa go'aamin doona hadba takhtarka uu u baahan yahay bukaanku. Allergists, takhtarka xasaasiyadda iyo qalqalka kiimikaaleed ee jirka. 2. Dermatologists, takhtarka maqaarka iyo xanuunada oogada jirka sida isnidaamiska maqaarka maqaar dilaaca, kansarka maqaarka. 3. Infectious disease doctors, takhaatiirta xanuunada faafa iyo kuwa la isqaadsiiyo sida hargabka, kuwa galmada ku gudba iyo HIV-ga. Ophthalmologists, takhtarka aragga iyo indhaha. 5. Obstetrician and gynecologists, takhtarka haweenka ee daweeya dhammaan xanuunada dhanka xubnaha taranka haweenka ku dhaca. 6. Cardiologists, takhtarka wadnaha iyo xanuunada wareegga dhiigga ku dhaca. 7. Endocrinologists, takhtarka daweeya xanuunada qanjirada dheecaanada jirka soo saara iyo hormoonada. 8. Gastroenterologists, takhtarka daweeya dheefshiidka iyo cunto mareenka sida gaaska iyo xanuunada caloosha. 9. Nephrologists, takhtarka xanuunada kelyaha ku dhaca. 10. Urologists, takhtarka kaadi mareenka iyo habsami u shaqaynta xubnaha kaadi mareenka. 11. Pulmonologists, takhtarka sanbabada iyo neef mareenka. 12. Otolaryngologists, takhtarka daweeya xanuunada cunaha, dhigaha iyo sanka ENT. 13. Neurologists, takhtarka neerfaha iyo xanuunada maskaxda iyo kalxangulaha. 14. Psychiatrists, takhtarka waalida iyo xanuunada dhimirka. 15. Oncologists, takhtarka kansarka iyo la socodka bukaanada qaba xaaladaha kansarka la xiriira. 16. Radiologists, takhtarka raajada kaas oo qabta saaridda bukaanada mashiinada jirka sawira iyo ka jawaabidda filimada jirka ee aaladuhu sawiraan. 17. General surgeon, takhtarka qaliinka guud. 18. Orthopedic surgeon, takhtarka qaliimada lafaha iyo kabidda. 19. Anesthesiologists, takhtarka suuxdinta iyo la socodka bukaanka inta uu suuxsan yahay xilliyada qaliinka. 20. Rheumatologists,
takhtarka xanuunada kala goosyada lafa xanuunka iyo xanuunada howl maalmeedka jirka qofka xadida gabagabadii nuuc kasta oo takhtar ah ayaa mara tababar u gaar ah iyo waxbarasho u gaar ah si loogu ogolaado inuu daweeyo cudurradan iyo xaaladahan gaarka ah mahadsanidin